qaybta lixaad ee taxanaha aasaaska al-shabaab waxaa inoo soo diyaariyey haaruun macruuf. ciidanka al-shabaab waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo laga dhiso qalabka, niyadda iyo dhinaca dhaqaalaha. 3daasi qaybood waxay kala yihiin amniyaadka, xisbada iyo jabhadda. ciidankaasi mid waliba waxa uu leeyahay taliye u gaar ah, waxayna toos u hoos tagaan amiirka al-shabaab Axmed Cabdi Godane. ciidanka koowaad oo ah xisbada waxay u howlgashaa sida booliiska, waxayna ku kala firirsan yihiin degmooyinka iyo gobollada, iyaga oo ilaaliya waddooyinka, maxkamadaha, kontaroolada, suuqyada iyo goobaha kale ee dadweynaha. waa ciidamo madani ah oo xiran labis gaar ah, waxaana howlaha kale ay qabtaan ka mid ah ilaalinta amniga jidadka. ciidanka labaad waa kuwa lagu magacaabo jabhadda, waana qaybta ku jirta furimaha hore ee dagaalada sida goobaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada dawladda iyo kuwa amisom, waxayna u howlgalaan sida milatariga, waxayna leeyihiin aaga gaar ah oo ay ka howlgalaan. qaybo ka mida jabhadda waxaa hadba la geeyaa meeshii dagaal ka jiro, waxaana ku jira qayb qaabilsan gurmadka goobaha furin cusub ka furanto. qaybta saddexaad ee ciidanka al-shabaab ayaa ah qaybta ugu awoodda weyn, waana qaybta lagu magacaabo amniyaadka. sheekh maxamed cabdulaahi bakistan waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab. al-shabaab walaal marka kaga warramo dad badan baa aaminsan rucbi iyo argagax iyo dhib iyo magaranaysa cadaadin iyo cadaab iyo shuddo badan iyo quwad ka aaminsan. dad baa laga yaaba inay ka aaminsan yihiin, laakiin waxa weye shabaabku waxay isticmaalaan ma aha awood buuxda, laakiin waxay isticmaalaan xirfad siyaasad ku dheehan tahay. inta badan waxay isticmaalaan waxa weeyaan guutooyinka qaraxyada ee mutafajiraadka iyo guutooyinka amniyaadka. amniyaadku macnaheedu waxa weeyaan dhowr qayb bay magaranaysaa u qaybsamaan. qayb baa bastoorada loo dhiibayaa, timaha ayay u jaranayaan, ciyaalka ciyaalziye loo yaqaano kale sida ayay u jartaan timaha. qayb baa sida magaranaysaa wadaadada suufiyada oo kale tusbaxya dhaadheer qaata si aan looga shakinin. qaar baa magaranaysaa surwaalka dhulka ku jiijiidaha oo magaranaysaa meelaha lagu shaahay. qaar baa baakad sigaar ah jaybada gashta. amniyaadkaas keliya bay sababka quwadda ugu sarreysan waxaan aaminsanahay inay tahay taasi. waxaad ku garan kadhaa ama dad badan oo ani aan ahayn ay ku cadayn karayaan xitaa ila madax banaan. magaalo kasta ay shabaabku joogaan, hadda gobolka ay ugu xooga badan yihiin oo kale, hadda gobolka shabeellada hoose oo kale ay jubbooyinka ay ugu xoog badan yihiin, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose meel ay kaga xoog badan yihiin ma jiro. hadda magaalada markoo kale waxaa laga yaabaa askarta ugu badan ee joogtahay inay yihiin min 40 ilaa 50, 40 ilaa 50 askari. laakiin magaaladaas waxaa laga yaabaa inay joogaan 100 iyo wax la jira ee dharcada ee madax jibin kaliya oo nool, ee dadka in madax jibiyaan lagu talagalay oo erey isdhaafa kaliya ka raadinaya oo ciddii arkaana jawaasiisnimo wax ku xugminaya xabsi dhigay. ciidanka amniyaadku waa qaybta ugu xooga weyn uguna nidaamsan ciidanka al-shabaab, waxayna u qaybsamaan dhowr qaybood oo ay ka mid yihiin qayb sida milatariga u tababaran oo lagu magacaabo jugta culus oo mararka qaarkood dagaalada la gasha ciidanka jabhadda. qaybtani waxay ku dagaalamaan madaafiicda sida jiibka iyo madaafiicda garabka laga rido oo mararka qaarkood diyaaradaha lagu bartilmaameedsado. waxaa kaloo qaybtan ay gashaa howlgallada gaarka ah iyagoo u tababaran sida kumaandooska milatariga. qayb kale oo ka mida amniyaadka waa qaybta basaaska, gaar ahaan kuwa soo indha-idheeya goobaha cadowga iyo shakhsiyaadka la bartilmaameedsanayo. qayb kale oo ka mida amniyaadka waa kuwa fuliya howlgallada ay al-shabaab ugu yeedho camaliyaadka sida qaraxyada iyo isbiimaynta. waxaa kaloo ay ku shaqo leeyihiin qaraxyada loo adeegsado miinooyinka gacanta laga tuuro iyo kuwa dhulka lagu aaso ama meesha fog laga hago. waxayna qaybtani inta badan fulisaa hawsha ay soo qabato qaybta basaaska. qayb kale oo ka mida amniyaadka waxaa lagu magacaabaa khusuusi. waa amniyaad gaar ah oo ilaaliya madaxda iyo dariiqyada iyo meelaha ay marayaan ama ku sugan yihiin madaxda al-shabaab. qaybtan waxay ku dhex jiraan dhammaan ciidamada kale ee al-shabaab, waxayna soo gudbiyaan dhammaan wixii kale ee ciidamada al-shabaab ay isku sheegaan ama dhexdooda ka dhaca. waa qayb si gaar ah u tababaran loona soo xulay. korneel cabdulaahi cali macow waxa uu hore uga tirsanaan jiray ciidanka amniga ee soomaaliya. meeshaan waxaa la dayacay agoontii iyo carruurtii danyarta ahayd. carruurtii maaragtay danyarta ahayd oo waddada iskaga koray ama koollaha cabaano ama qaad garaabaha ku noolaadaano amaba maarata derbiyadaas ka jiiftaano, kuwaas ayay aruuriyeen. markaasi waxay u tababareen inay maaragtay ciidan ay noqdaan. kadibna way sii kala xuleen. qaar ka mid ah waxay ka dhigeen inay ikhtiyaalaad ay dadka ay dilaan asaasin ay ku sameeyaan. waayo cunuga waxa waaye barbaarin iyo waxbarasho kama uusan helin, bulshadana kama uusan helin, dawlad waxbartayna ma laha, waalid waxbarana ma laha. sidaas ayuu maaragtay oo wadada ayuu isaga soo koray. siyaabaha loo tababarna waa si halis ah. sidoodaba waxaa loo tababaraa ikhtiyaalaadka, bustoolad ayaa lagu tababaraa. marka bustoolada waxaa la baraa qofka bini aadmiga meesha ugu sahlan oo ka dhiman karo waa madaxa iyo wadnaha.
kalxanta ayay xabadda kaga soo dhuftaan, midna saabweynta inay kaga dhuftaan ayay maaragtay wadnaha ay hore u gooyaan. laba xabadood haddii ay ridaan waxa waaye qofka nolol dambe muxuu ahaa oo laga sugaayo ma jiro. waxaa la sheegaa in amniyaadka ay yihiin ciidamada ugu tirada badan al-shabaab, hase yeeshee waxay iskula socdaan koox koox. tusaale ahaan waxaa la aaminsan yahay in 40 ninba ay hoos tagaan mas-uul gaar ah oo ay toos ugu xidhan yihiin. waxaana dhacda in hal shaqoo isku mid ah loo diro dhowr unug oo ka mida amniyaadka iyaga oo aan is aqoonin ama isla soconin, iyadoo sababtana la aaminsan yahay inay tahay in haddii koox ka mid a ay fashilanto ay kooxda kale howlgalka fuliso. waxaa la sheegay in howlgalka aanu unugna la wadaagin unugga kale, waxaa la kala dhex galaa oo keliya haddii ay dhexdooda isku dhacaan oo markaasi la kala leexiyo. waxaa iyaduna xiise gaar ah leh sababta ay ciidanka al-shabaab ugu kooban yihiin unugyo ama kooxo tiro kooban, taasoo khibradu ay ku macneeyeen in si dhib yar ay uga soo kabtaan haddii qof mas-uula uu la goosto ciidan ka kooban ilaa 40. haddii ay soo baxsadaanna waa laga maarmaa. haddii ay soo baxsadaan isla markaasi waxa waaye xukuumaddii haddii ay usoo baxsadaan ma damaanad qaadi karaan inay qofkan ay maaragtay ay naftiisa ay badbaadiyaan, sababtoo ah waxa uu og yahay meesha u fakanayo inay ka howlgalaan qolooyinkan amniyaadka oo ikhtiyaalaadka. marka cabsi badan iyo rucba ku jiro ayuusan marnaba uusan isku dayin inuu soo baxsado. haddii uu soo baxsadana waxa ay noqonaysaa inuu waddanka o dhan uu iskaga cararo. ciidankan amniyaadka xulistooda iyo in la aaminaaba wakhti dheer ayay u baahan tahay. sidoo kale in la tababaro ayaa iyaduna wakhti kale oo dheeraad ah qaadata. waa ciidan si gaara loogu nasteexeeyo loona tashkiiliyo iyadoo la geynayo meelo gaar ah. sidoo kale waxaa loo diidaa inay ka fikiraan adduunyada iyadoo la siiyo dhaqaale iyo xaasas badan midkiiba. waana ciidan si joogto ah looga dhaadhiciyo cadaalad darrada ka jirta caalamka islaamka iyo qadiyadaha islaamka, gaar ahaan tan reer falastiin, kashmiir iyo soomaaliya. cali geedi xasan waxa uu ka tirsanaan jiray madaxda al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe ka hor intii uusan ka goosan. misaal nashiidooyina loo daara waxaa laleeyahay mataqaana isku xirqooha mataqaana in maxaa la yidhahdaa la daaro nashiido ka hadlayso waxa meesha yaala waxaan ahayn. misaal in macnaha nin shacir sameeyey oo gabadhiisa faanihay oo kale qiimaha ay agtiisa ku leedahay iyo maxaa la yidhahdaa bunayati markaysaa gabadhaydii waa qof mudan oo mataqaana mansiladaas agteeda ka joogtaa nin iska dhahayo ay ku xurqoohayaanba. marka macnaa nin afariin soo diraya wuxuu leeyahay waxaad tihiin jeish ulcusrata fi somaal oo mataqaana abdaal somalia tihiin, waxaa laydinka rabaa inaad soo dhaqaaqdiin oo mataqaana ethoopia aad timaadiin, libya aad timaadiin. markaa libya timaadiin gantaalka libya laga rido wuxuu gaari karaa maxaa la yidhahdaa qudus. waa macnaha waxyaaba khiyaaliyaho ummadda soomaaliyeed ayan ximbaari karin. marka nin weyna markaas mataqaana dhalinyaro ina fayliyo soo hor istaaga markaasuu leeyahay sheekayna wuxuuna yidhi soo dhaqaaqa ethoopia imaada, maxaa la yidhahdaa suudaan soo gudba, maxaa la yidhahdaa markaad timaadiin meeshaas waxaa gaaro macnaha waxaa tihiin difaaca islaamka ee galbeedka africa. maaha maxaa la yidhahdaa maaha macnaha nuucaas mataqaana maaha nuuc maxaa la yidhahdaa ummadda ay ximbaari karto. dadkan mar kastaba ma arkaysaa maaha ummad maxaa la yidhahdaa ummaddaan mataqaana hogaamin karto. dr roland marshall oo ka mid a khubarada qoraalada badan ka sameeyey ururka al-shabaab waxa uu ii sheegay in si loo fahmo qaabka ay al-shabaab wax u maamusho la eego 2 waxyaabood oo ay ka mid yihiin doorka muhaajiriinta ama ajaanibta iyo sida ay u maareeyaan xubnaha ururka iyo ciidankoodaba. What makes the strength of Shabab is its ability to keep a certain level of bureaucratic organization. waxa awoodda al-shabaab xoojinaya waa awoodda ururku u leeyahay inuu sameeyo maamul nidaamsan. tusaale ahaan haddii aad dagaalyahan tahay bil walba mushahar ayaa lagu siinayaa. waxaa jira lacagyo u dagaalyahaniinta la siiyo munaasabado kala duwan, taas oo ka duwan marka laga hadlayo dowladda kumeel gaadhka iyo maleeshiya beeleedyada kale oo mushahar la siiyo markii loo helo ama markii la doono. dhanka kale markii al-shabaab ciidan loo qorayo waa in ruuxa la qorayo lasoo caddeeyaa. waa in kuwa la qoraya ay su'aalo dhowra ka jawaabaan oo ay taariikhdoodii hore, qaraabadooda iyo lambarrada telefoonnadooda ay sheegaan. waxaana xiisaha gaarkaa lihi waa in macluumaadkaas dib loo hubinayo. hal arrin oo la yaab lihi waxay tahay 20kii sano ee dagaalka sokeeye uu socday ma jirto jabhad amaba xitaa dowlad keedin jirtay arkiifyada wixii ay samayn jirtay. somalilanna xitaa ku daro. markaad dhinacaas eegto doorka ajaanibtu waa muhiim. waxaana laga yaabaa in hanaankan ururka alqaacida laga keenay. alqaacida waa urur hanaan maamul oo habaysan leh oo sida shirkad loo maamulo. waxaa laga yaabaa in arrintani usaama bin laadin ay ka timid, waayo waxa uu u shaqayn jiray shirkad uu aabihii lahaa. marka waxaan u malaynayaa in al-shabaab ay halkaas khibrad ka heshay. taasina malaha waa sababta ururka dadkiisa u maamulo si ka duwan sida ururada kale ee hubaysan ee dagaalka sokeeye ee Soomaaliya.
say it's a bureaucracy, and you could envision it different ways as a pre-totalitarian organization. adigu sidaa doonto wax waad u eegi kartaa, waxaad odhan kartaa waa urur keligii talis ah. waxaad kaloo u arki kartaa in ururku leeyahay maamulayaal heer dhexe oo wax la socda, kana tacliin wanaagsan kuwa dawladda ku-meel gaadhka amaba kuwa kale. haddii aad awood u leedahay inaad markaad ciidan qorayso aad ciidankaas macluumaad ka ururiso oo aad kaydiso kadibna aad adeegsato, micneheedu waxa weeye arrintu waxay u baahan tahay dad leh garaad heerkaas gaadhsiisan. waxayna u muuqataa in ururka al-shabaab uu taas leeyahay. markase adeegtay dawladda ku-meel gaadhka ah ha ahaadaan xubnaha baarlamaanka amaba askarta ciidanku, iyagu tayadaas ma laha. haddaba yay yihiin xilligan dadka hogaamiya al-shabaab? wax badan lagama yaqaano qaab dhismeedka ururka iyo hoggaankiisa, waxayna inta badan u shaqeeyeen qaab sir ah. warbaahintana lagama sheego xilalka iyo darajooyinka ama jagooyinka ay kala hayaan hogaamiyaasha al-shabaab. waxaa kaloo jirta in hogaamiyaasha al-shabaab ay si ulakac ah u marin habaabiyaan warbaahinta caalamiga iyo sirdoonka reer galbeedka, iyagoo si joogta ah u beddela magacyadooda. talada al-shabaab ee ugu weyn waxaa iska leh amiirka al-shabaab axmed cabdi godane, waxaana uu madax u yahay golo fulin oo tiradiisa laysku khilaafo. haddaba axmed cabdi godane waa nin caynkee ah? haddaad faantum keentaan, bada soo faruurtaan, beegan foosa soo tubo, ciidan feelsan soo guro, awal baanan fiicnaan iyo qabin fayoobaan. insha allah mujaahidiintuna cadowga marnaba meeshooda uma joogi doonaan, ee waxay ku dadaali doonaan in iskuday kasta oo cadowga uu soo wada ay ka hortagaan oo halkiisa ku fashiliyaan. axmed cabdi godane waxaa lagu tilmaamaa nin aqoon-yahana, hal adag, gabyaana ah. waxaa la aaminsan yahay inay da'diisu tahay bartamaha afartameeyada, waxaana uu ka mid ahaa dhallinyaradii ururka al-itixaad ee wax ku soo bartay dalka bakistan, kadibna u gudbay dhinaca dalka afghanistan. dabayaaqadii sagaashameeyada ayuu ku soo laabtay soomaaliya. maamulkii etoobiya iyo maamulka somalilan oo sirdoonkoodu si dhow u wada shaqeeyo ayaa ku tuhmay godane iyo rag kale uu ka mid yahay ibraahim xaaji jaamac inay lug ku leeyihiin weeraro ka dhacay kilalka shanaad ee soomaalida etoobiya iyo weeraro lagu qaaday dad ajaanib ah oo ka shaqaynaya somalilan. waxay labadaasi xubnood u arkeen in halka ay kaga nabadgeli karaan sirdoonka etoobiya ayna ka sii wadi karaan fikirka afghaaniga ah ay tahay koonfurta soomaaliya. cabdiraxiim ciise caddow waxa uu ka mid ahaa dadkii la kulmay markii ay muqdisho soo gaareen. axmed, anigu intaan ka aqaano marka aad is aragtaan waa nin horta muuqaalkiisa aada u qariyo inta badan oo isticmaala cimaamadu qaataa inta badan. cimaamadaasna wuxuu inta badan ku qariyaa qeybaha madaxa jirkiisa iyo meelo lamid ah. dadka yaqaana markii ay tilmaamayaan waxay ku tilmaamaan nin ad adag inuu yahay oo ra'yigiisa aan laga leexan karin oo aada u jecel inuu noqdo ra'yigiisa midka ugu dambeeyo oo lawada raaco. xagga dabcigana waxaa la yidhahdaa waa kulul yahay oo aada u xanaaq badan yahay, spiritkiisa aada u badan yahay. dhinaca kale waa nin aada u fikira oo aada u soo jeeda oo inta badan waxaa la yidhahdaa waktigiisa inta badan ma beerbereyo oo wuxuu ka fikiraa qaabka ururkan uu hogaamiyo sidii uu ku guuleysan lahaa. aada ugu fikiraa, wuxuu aada uga fikiraa kaleeto sidii sayf oo u noqon lahaayo. arrinta amnigana aada u daneeyaa oo taxadar badan oo ka muujiyaa. dabci ahaanne waa sida aan tilmaamay, nin xirxiran waayo, bulshadan aada uma dhex galo, waana iska qariyaa inta badan qof kasta. xataa markaad la joogto wuxuu ka fikiraa inaadan dhegihiisa iyo qoortiisa iyo arkin. isdhaalintuna way kuweyn tahay. sheekh cabdiraxmaan maxamed faarax janaqow oo ka tirsanaa maxaakimta islaamiga ayaa ka mid ah dadka kale ee yaqaana amiirka al-shabaab. waxa weeye nin xagga aqoon ahaanta dhisan weeye. waa nin jecel inuu isagu maaragtay hoggaan qabto oo wadanka hogaamiyo oo maxay ahayd umuux leh waaye, ambition leh waaye. nidaamka uu rabo ama jeclaan lahaa inuu ku hogaamiyana waa nidaamka maxay ahayto alqaacida ay fikirkeedoo kaleeto ah oo jihaadka in la wado oo maaragtay maxay ahayto adduunka oo dhan jihaadkaasi uu maaragtay gaaro oo ummadda islaamka ay isku xidhmaan oo xuduudahan iyo waxaan dawladahan kala qoqobaya iyo caalamul islaami adiga iska arkayo oo tabardaridu ay hayso oo yani ka fikir caam ahaan waa fikirka maxay ahayto ummadda islaamka ahi ay laga yaabo dad badan oo kamid ah inay qabaan dawlad weyn oo islaamiya la sameeyo. fikirku waa ka axmed cabdi godane oo sidoo kale qaata magacyo ay ka mid yihiin sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abuzubayr waa nin aftahan ah, iskuna daya in kasoko xiriirka alqaacida uu dagaalka al-shabaab la xiriiriyo kuwa gobonnimo doonka, waxaana uu adeegsadaa suugaanta soomaalida siiba gabayada si uu fariintiisa u gudbiyo. madaxweynaha dowladda ridada
waxaanu ku leenahay nin gumaysi habayoo isticmaar habeenyoo la halmaalay baa tahay habrashada xanuunka iyo haasaawahoodana ninu heelan baa tahay halgan iyo islaamnimo inaad heerta mooye weligaa dab uma hurin marka aad nin hanadiyo horsocod murmaysaan halaq laba aflaa tahay dadnimada hoggeedana dibaddaad ka huruddaa sheekh axmed cabdi godane waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay ragga ka tirsan al-shabaab ee sida weyn ugu qanacsan dagaalka alqaacida ee caalamiga dhinaca kalena waxa uu isku dayaa inuu isku miisaamo siyaasadda dibadda ee alqaacida iyo tan gudaha isagoo isku daya soo dhoweynta muhaajiriinta iyo soo jiidashada beelaha ciidankooda u badan yihiin maleeshiyada al-shabaab ee lafdhabarta u ah xoogaga xarakada beelaha soomaaliyeed ee mujaahidiinta garab siiyey naf iyo maalbana u huray dariiqa alle subxaanahu wa tacaala deegaankoodana mujaahidiinta u furay cadowgana ka hortegay si gaara waxaan u xusaynaa beelaha maxamuud hiraab murursade gaaljecel hubayr iyo ligsi ninka labaad ee ugu awoodda weyn al-shabaab waa ibraahim xaaji jaamac guddoomiye ku-xigeenka ururka al-shabaab waa ninka ugu waaya aragnimada badan hoggaanka sare ee al-shabaab waxaana la sheegaa in kastoo uu ku magacaaban yahay hoggaanka maaliyadda inuu mas-uuliyado kale oo badan ka dhexayo ururka siba dhinaca hoggaanka warbaahinta iyo talabixinta ibraahim afqaan waxa uu ku noolaan jiray gobolkan virginia ee dalka maraykanka waxaana dabayaaqadii sideetameeyada uu tegay dalka afghanistan halkaasi oo uu ku biiray jihaadkii ay reer afghanistan dalkooda kaga saarayeen shuuciyaddii midooda soofiyeti ibraahim xaaji jaamac waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay aabbaha jihaadka afghaaniga ee soomaaliya loo soo dhoofiyey dilkii usaama bin laadin kadib ayuu la hadlay idaacadda taageerta al-shabaab mucaskaraad uu sheekhu toos gacanta ugu hayay iyo mucaskaraad ay rag kale hayeenba uu tamwiilin jiray oo maalkooda bixin jiray hobka lagu tababaranayo dirayska ay dadku raggu gashanayaan noloshooda rasaasta la ridaayo anwaacda hubka oo laga bilaabo baastoolada iyo aakeega ilaa laga gaadhsiiyo sawaariikhda ard jow sida istinkarka kulligood waa lagu baran jiray taangiyada madaafiicda nooc kasta ay yihiin mutakhasusaad kala duwan oo cilmiya xilligan waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay ragga ugu halka adag al-shabaab talada ugu muhiimsanna ay ka go'do sheekh maxamed cabdulaahi bakistan waa sargaalkii ugu darajada sarreeyey ee ilaa haatan ka soo goosta ururka al-shabaab waxa weye ibraahim nin aad khaali u ah weeyaan ilaa 7 magac buu leeyahay wuxuu yidhahdaan abubakar zaylici laakiin magaciisa rasmiga wuxuu yahay ibraahim xaaji jaamac ama ibraahim miicaad saa u taqaanaba macalin cali edmana la yidhaahdaa sheekh shaala la yidhaahdaa magacyo badan buu leeyahay ilaa 7 gaadhaya waa nin nooceeya abubakar zaylici waa nin maarin ah gar saa macnuhu saa u badan aan lahayn gaabi dheerna gaabi xiga waa nin maa bayna 40 diinta islaamkuna aqoon buu leeyahay gaar ahaan waa sidii faad sangalo kale ragga soo jiita weeye oo muxaadarada jeediya hadda la qaata weeye dadka fahamsiin karaya dad aan la hadlay waxay dhaheen waa ninka ugu go-aanka adag le al-shabaab markay noqoto waa hogaamiyaheeda rasmiga la dhihi karaa waan garta run bay kuu sheegeen waxa weeye ururka shabaab markaan kamid ahaa waxay sheegi jireen ama waxaan ka maqli jiray umarada markaan la shuureynayo kale ku-xigeenka amaba naaibka abu zubayr inuu yahay mukhtaar robow cali ayadoo saa la leeyahay oo saa la sheegayo aada maqlaysa horaada ceenka inay adeegsanayaan baad arkaysaa la shuureynta iyo la tashiga inuu ku badan yahay abubakar zaylici oo go-aanka oo dhan ba isaga soo saara haddii wax la bedelayo haddii magaranaysa meel la weerarayo haddii go-aan caalamka ku waajahan la qaadanayo ya xitaa waa tafaftiraha magaranaysaa aaraacda abu zubayr moogtahay sheekh cabdiraxiim ciise caddow waxa uu ii sheegay in axmed cabdi godane iyo ibraahim xaaji jaamac ay si weyn isugu dhow yihiin dhinaca fikirka iyo siyaasadda masalan ibraahim afqaan marka laga hadlaayo waa nin marka axmed cabdi loo fiiriyo bulshada aada u dhex jiri kara oo furfuran oo aada u sheekeeya oo dhool cadeyn badan oo qoslaaya oo jecel qofka dadka inuu barto ay isbartaan oo ay sheekaystaan oo ay oo marka qaado oo la fadhiisto weydiiyo su-aalo badan oo kala duwan oo xog markaas isaga oo banaynaayo amba mar dhaqanka iyo cultureka ka jira markaas muqdisho ama gobolada u dhow dhow dadka wuxuu jecel yahay inuu family ula kulmo ama uu u barto ama uu macluumaad dheeraada ka helo marka xagga furfurnaanta waa nin aada uga furfuran inta la yihahdo axmed godane ninka saddexaad ee la aaminsan yahay inuu ugu awood weyn yahay ururka al-shabaab waa sheekh mukhtaar roobo cali oo ku magac dheer abumansuur waxa uu ku magacaaban yahay ku-xigeenka labaad ee ururka al-shabaab waxaa kale uu ku magacaaban yahay madaxa ciidamada oo u dhiganta wasiirka gaashaandhigga
abumasuur waxa uu isna ka mid ahaa dhallinyaradii ururka al-itixaad ee burburkaasi kadib tegay dalka afghanistan dhowaan markii la dilay usaama bin laden waxa uu ka sheekeeyey kulan uu kandhahaar kula qaatay usaama bin laden sheekh usaama raxmatullaahi caleyh dadka aan arkay dadka ugu akhlaaqda fiican buu ahaa sheekhu markaan arkay oo igu horreysay xilli galada bay ahayd oo uu kandhahaar joogay sheekhu markuu yimid oo aan is aragnay cimrigaygu waxay ahayd markii ugu horreysay oo farxad la ooyey qof aan arkoon ku farxo runtii aan la ooyey bay ahayd abumasuur waxa uu ahaa ku-xigeenkii gaashaandhigga ee maxkamadaha waxaana uu ahaa saraakiisha loogu jecel yahay maxkamadaha sheekh cabdiraxmaan janaqo oo ka mid ahaa maxaakiimta ayaa iiga warramay aqoonta uu leeyahay abumasuur abumasuur dhammaan waa ka fikir duwan yahay aniga sidii aan ku ogaa waa nin maaragtay isagu u dhow ilaa xad ma xagga ictidaalka uga dhow ragga aan soo sheegay uga dhow weeye waa dadkii maxay hayto magaalada muqdisho iyo goboladan koonfureed isagu kasoo jeedo baay xaggeeda nin muxuu ahaa wax ku bartay wadanka weeye aqoontiisa diineed ay maaragtay ilaa xaddin ma ay macquul tahay xagga fikirkana raggii maxaakimta oo aniguba aan kamid ahaa aada ugama dheerayn xilliyadii igu dambeysay waxaana isleeyahay meesha waxaa gaarsiiyey oo xoogaa uu la fogaatay wakti ay isaga iyo sheekh shariif guddoomiyuhu ay maaragtay oo hadda madaxweynaheena ah ay xoogaa isku yar dhaceen oo hataa aan anigu ka qayb galay maslaxidoodii laakiin sida muuqatay uusan maaragtay maxay ahayto ku qancin xanaaq uu marka halkaa kasoo xanaaqay uu isyiri bal adigu maaragtay isku day inaad adigu wax noqotid marka laakiin halgankii baa la fogaado xaggaa la galay marka isagu fikir ahaan iyo dabeecad ahaan labadaba waa ka yara dabacsan yahay dhammaantood maxay isu qabteen isaga iyo madaxweynaha wallahi aniga hadda bisabdi waxay isku qabteen oo weyn ma aanan arkin laakiin adigu qaab uun maamulka ku saabsan oo isagu arkahayay in sidii habboonayd aan la yeelin oo maaragtay maxay ahayto guddoomiyuhuna markii la ishor fadhiistay uu ka garaabo oo raalli ah uu yidhi baa maaragtay muxuu ahay jiray hadda wax la kala qaato kale ma jiro sidaasoo ay tahay abumasuur waxa uu dhinaca kale amiirka al-shabaab u muujiyey inuu si weyn ugu qanacsan yahay jihaadka caalamiga ee alqaacida waxaana uu sanadkii hore taageero u muujiyey alqaacidada gacanka carabta ee fadhigeedu yahay dalka yeman walaalaheenna yeman insha allahu mujaahidiinta reer soomaaliya diyaar waxay u yihiin biyahaas yaree noo dhaxeeya inay ka soo tallaabaan oo idiin soo gurmadaan u diyaariya meeshay ku soo gurman lahaayeen insha allahu tacaala annagana diyaar waxaan u nahay inaan gurmadiyo u dirno ninka afraad ee ugu awoodda weyn al-shabaab waa sheekh xuseen cali fiidow oo ku magacaaban madaxa siyaasadda iyo gobollada ama wasiirka arrimaha gudaha sheekh cabdiraxiim ciise cadow ayaa iiga warramay waa nin fikirka al-shabaab uu ku wen yahay oo runtii dadka la dhihi karo waa ugu xag jiraan uu kamid yahay oo ugu tadarufsan ragga al-shabaabka marka laga hadlaayo siyaasadda iyo gobollada marka laga hadlaayo waxaa hoos yimaada waxaana la yidhaahdo guddoomiyaasha gobollada aliyaasha iyaga u yaqaaniin waana jaanib bulsho ahna waaye kolley ma ahan maadaama gobolladu maamullo ay ka jiraan oo degmooyin iyo ciidanka xisbada la yidhaahdo iyo oo ka shaqeeya macnaha sidii canshuuraadka ama waxyaabahaas ay sameeyaan dadka looga qaadi lahay iyo sida qabaa'il dagaalamay iyo laakiin waxaa laga barakaysanaya aan isleeyahay maadaama nin fikirka ku qanacsan uu yahay una dhashay gobolkan muqdisho eriyadan dadka deganna uu kamid yahay waxaan isleeyahay dadka xaafada deegaanka uu ka dhashayna ay aada u taageereen mashruuca al-shabaab waxaan isleeyahay waa arrin la siyaasadaysan oo la rabo in lagu soo jiito dad gaar ah bulsho markaas meesha degan laakiin inta anu ka maqlay oon ka aqaano nin hadda karti badan oo farsamo yaqaan ah oo xariif ah oo wax kala dibera oo fikirka iyo takhdiidaadka waaweyn oo ay ku howlgalaan curiya ama looga dambeeya kuma maqal inta aan ka maqlay amba aan markaas aan ka dareen
in muddo ahba ururka al-shabaab waxay la soo kulmayeen dib u dhacyo siyaasadeed iyo kuwo milatari kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dilalkii aadan xaashi cayrow saalax cali nabhaan iyo fasuul cabdalla maxamed dilkii fasuul cabdalla kadibna waxaa la aaminsan yahay in maraykanku weerar ay ku qaadeen deegaanka qandal oo koonfurta ka xigta magaalada kismaayo lagu dilay ugu yaraan mid ka mid a ragga sida weyn isugu xidha al-shabaab iyo alqaacida waxaa kaloo weerarkaasi lagu dhaawacay 2 nin oo lagu kala magacaabo bilaal barjaawi oo u dhashay dalka lubnaan iyo sakuur oo u dhashay dalka masar waxaa la sheegay in labadaasi xubnood ay xidhiir la lahaayeen wadaadka u dhashay maraykanka ee hogaamiya alqaacidada gacanka carabta anwar al cawlaqi qofka afraad ee weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday waxa uu ahaa nin u dhashay soomaalida kenya haystana dhalashada dalka norway oo lagu magacaabo ikram oo al-shabaab u qaabilsanaa dhaqdhaqaaqa yurub gudaheeda weeraradan qaarkood waxay muujinayaan in sirdoonka reer galbeedku ay dhex galeen hoggaanka al-shabaab dib u dhacyadankii ugu dambeeyey waxa uu ahaa dib u gurashadii al-shabaab ay kaga baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen inta badan magaalada muqdisho dadka siyaasadda al-shabaab la socda waxay aaminsan yihiin inay isugu darsameen guuldarrooyin dhinaca milatariga khilaaf gudaha ah iyo culays dhaqaale oo isugu jira mid guud iyo mid gaar ahaaneedba siiba in shakhsiyaadka hogaamiya ururka al-shabaab ay maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayso kharashka kaga baxa amnigooda mukhaabaraadka gaarka ah iyo nolosha qaaliga ee ka midka tahay qoysaska ballaadhan dadka siyaasadda soomaaliya la socda waxay aaminsan yihiin in al-shabaab ay u furan tahay dhowr wad oo ay ka mid yihiin inay sii wadaan dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ee la aaminsan yahay inay hadda sii gelayaan waxaa kaloo u furan inay dib u habayn ku sameeyaan siyaasaddooda ayna beddelaan tallaabo kasta oo siyaasadeed milatari dhaqaale iyo ijtimaaci oo ay 5tii sane ee lasoo dhaafay qaadeen waxaa kale oo la odorosi karaa in isbeddel ku yimaado hoggaanka al-shabaab al-shabaab waxaa kaloo ay lahaan karaan qadiyad soomaalinimo iyo qorshe siyaasadeed oo dadka iyo dalka ay u soo bandhigaan waxa ay kaga duwanaan karaan ururada iyo dhinacyada kale ee soomaalidana ay sharaxaan